garoonka waxaa la dhisay 1987 wuxuuna ka mid ahaa mashaariic ay dowladda Jaynaha ka hirgelisay magaalada Muqdisho iyo gudaha Soomaaliya garoonkani waa garoon aad u weyn marka laga tago qaybta hadda aan joogno oo ah qaybtii kubadda cagta waxaa jira qaybo kale sida qaybtii dabaasha qaybtii kubadda kolayga qaybtii tenniska qaybtii dabaasha waa qaybo ballaaran tan iyo markii dagaalada sokeeye ay dhaceen garoonkan maraaxil kala duwan ayuu soo maray bilowgii sagaashanaadkii markii la yimid ciidamadii qaramada midoobay ee hawlgalkii UNISOM waxaa saldhig ka dhigtay ciidamadii dalka Pakistan ciidamadii UNITAM ee halkan yimid ee horkacay sidaas oo kale saldhig ay halkan ka samaysteen wixii markaa ka dambeeyey dagaaladii sokeeye iyo khilaafaadka ayaa dib Muqdisho uga bilowday mar kale waxay halkan saldhig u noqotay ciidamadii Itoobiya ee qabsaday Muqdisho markii maxkamadaha laga saaray dhamaadkii 2006 dagaalada culus ayaa soo horjeeday halkan ku dhex maray waqtiga wixii ka dambeeyay markii ciidamada Itoobiya halkan ay ka baxeen waxa la wareegay al-shabaab halkan waxay u ahayd xarun ay ku tababaraan dhaliintooda waliba gaar ahaan shiishka ayay ku bari jireen hadda aragto qayb ka mid ah waxa ku yaala rasaastoodii oo nool oo ay shiishka ku tababaran jireen al-shabaab markii Muqdisho laga saaray waxay halkan saldhig u noqotay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Uganda 7 sano ee ugu dambeysay halkan ayay deganaayeen saaka ayay qalabkoodii ugu dambeysay ka rarteen garoonka waxaa ka muuqda burbur baaxad leh sida aad arki kartaan guud ahaan waxaad moodaa inuu u baahan yahay malaayiin doolar si garoonka dib loogu kiciyo dowladdu waxay ballan qaaday iyadoo kaashanaysa dalxiisayaasha iyo xeerka Soomaaliyeed ee kubadda cagta in garoonkan dib loo dhisi doono isla markaana haybadiisa isboortinimo uu dib u soo ceshan doono إبراهيم محمد آدم BBC مقدشة استادية